magaalada Hamburg waxaa dhawaan ka qabsoomay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen bulshada qaybaheeda kala duwan. Kulankan oo loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidda sidoo kalena ahaa kulan isbarasho iyo isxaalogaansho isugu jira ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee markaasi noociisa kale lagu qabto magaalada. kulankan ama munaasabadan waxa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaalida Hamburg waana kulamo isxigay ayuu qayb ka yahay kulankan marka ujeedada guud waxa weeye sida loo dhiirigelin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hamburg ama gobolka Hamburg iyo nawaaxigiisa si ay uga tashtaan aayahooda inta ay munaasabada socotay waxa dadku ay sheegeen baahida loo qabo jaaliyad in la sameeyo jaaliyadaas oo iminka hawsheeda ay meel fiican marayso waxaan rajaynaynaa mar dhow in aan yeelano xafiis annaga aan leenahay oo gaar ah maadaama hadda xafiiska aan ku shaqeyno uu yahay xafiis hay'ad ay leedahay. bulshadii ka soo qayb gashay kulankan ayaa iyaguna bilaabay dhankooda iska ururinta tabarucaad sidii markaasi magaalada looga hirgelin lahaa masaajid iyo madrasad wada socda. kulanka runtii wuxuu ahaa mid xiisihiisa gaarka xambaarsanaa sababtoo ah waxa isugu yimid waxay ahayd waalidiintii Allahu musta'aan oo kala qaadeen rag iyo dumarba dhalinyaradii caruurtii qaybihii kala duwanaa odayaashii waxgaradkii cid walba bulshada ka koobnayd ee magaalada Hamburg ku nool waa ay timid fikradoodna way ka dhiibteen waxa weeye sidoo kale inta xafladdu ay socotay waxaan halkan ku qaadanay waqti wanaagsan oo ah inaan wada qadeynay oo aan wada cuntaynay iyo sidoo kale in heesihii dhaqanka halkan group ama dhalinyaro xagga dhaqanka ku wanaagsan dhaantada ay noo yimaadeen oo ay wacdar ka dhigeen oo runtii iduna xiiso gaar ah lahayd marka isu imaanshaha bulshadu waxa weeye wax muhiim ah in la wada tashto waa wax muhiim ah muhiimadda guudna waxa weeye sida mustaqbalka meel sare aan uga gaari lahayn wadankan maadaama ajaanibta nala midka ay u tartamayaan mustaqbalka in meel sare ay ka gaaraan nolosha dalkan. qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay xafladan ayaa iyaguna dhankooda aad ugu nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in la helo jaaliyad Soomaaliyeed oo ka hirgasha magaalada Hamburg. runtii fariinta aan farayo dhalinyarada halkan joogta waxa weeye in la suuqda yimaado in jaaliyadda la taageero in aynu hal ujeedo aynu wada yeelano dhammaantiinba si aynu u helo jaaliyad dhammaystiran oo xaqiina iyo xuquuqda naga maqan Jarmalka aynu u helo marka dhalinyarta saxaabtayda ah iyo dhalinka shahraha Hamburg waxaan kula tartamayaa inay yimaadaan inay ka soo qayb galaan inay xoojiyaan kolay jaaliyadu dad badan wax badan ka aaminsan yihiin waxyaabo kala duwan ka aaminsan yihiin laakiin jaaliyadu waxyaabaha qabantoodo runtii imka maandhow talaalka wiil Soomaaliyeed ku dhintay dhibaatadiisa in waad arkayseen inaanu qof kada inaan laga dabaalan ka marka qof dhinto waxa Turkiga oo xasa u qaabilsan marka laakiin waxa la hadii Soomaaliyeed timaado qofka dhintay inaga aasi lahayn dhibaat wax badan bay inuu qaban lahayn qofkii xanuunsada dhibaatada dadkii imika ciidis ma taqaan hadda mid meel ku xanuunsado dhibaatadeedu bay leedahay marka waxaan leeyahay jaaliyadu inay wax badan u qabanayso Soomaalida gaar ahaan familiyada iyo caruurta meesha ku dhalanaysa marka aad baan ugu faraxsanayn runtii ismaashaha ama munaasabadaha noocan ah bulshadu waxay u leedahay faa'iido weyn taasoo ah isdhexgal isbarasho in la aamino in wadajir loo shaqeeyo in qofka kale uu ka warhayo sidoo kale ubadka Soomaaliyeed ee halkan ku dhalanay kuwa la keenayo in iyaguna iska warhayaan bulshadu ay noqoto bulsho isku xiran. isku soo wada duubo xafladan oo ku soo dhamaatay jawi wanaagsan ayaa u noqon doonta bilow barnaamijyo xaflado iyo kulamo kale oo lagu bilansan yahay inay iyaguna dhawaan ka qabsoomaan magaalada. halkan day baata billahi alayk jahiga tahay qaada khaladkaaga qiro raasa raacu adi saxo shaada sharka dibka dhaaf caaga hana dhulka dhiga kor baaqa ka faraska qaad kor lama naala migana soo kor ha wariya hosino gudi ha wariya hosino gudi ha wariya hosino gudi